waxaa soo dhammaaday shirar taxane oo u socday ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga oo looga hadlayay badbaadinta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Shirarkan oo ay hogaaminayeen sharikadaha ugu waaweyn dalka Turkiga ayaa waxaa looga dooday dhibaatooyinkii ugu dambeeyay oo soo waajahay ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Kulamadan isdaba jooga ayay ganacsatadu ku go'aamiyeen inay samaystaan golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. sidoo kale safaaradda dawladda Soomaaliya ee dalka Turkiga waxay 31 bishii Janaayo si buuxda u aqoonsatay golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. waxayna soo saartay warqadda sumadeedu tahay SOM-M ee barafar 52/2022. bayaanka ay safaaradda soo saartay ayaa sidan u qornaa: safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Turkiga kadib markii ay hubsatay habraaca lagu dhisay golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ee SOPCOT, waxay cadaynaysaa in golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga inuu yahay golaha kaliya ee sida rasmiga ugu matali doono dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. safaaraddu waxa kale oo ay cadaynaysaa in sharikadaha ku midoobay golaha ganacsatada Soomaaliyeed ay si sharci ah ugu doorteen 19 Janaayo 2022 magaalada Istanbul gudoomiyahooda oo ah Ibrahim Mohamed Maxamuud. safaaraddu waxa ay xaqiijinaysaa in magaca golaha ee SOPCOT uu ka diiwaan gashan yahay safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga, iyadoo ka rajaynaysa cid walba ay shaqo kala dhaxaysa inay u fididayso wixii shaqo ah ay uga baahdaan. arrintan ayaa waxaa la filayaa inay soo afjari doonto mashaakil badan oo haystay ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. goluhuna uu horay ugu sii ambaqaadi doono siduu uga shaqayn lahaa badbaadinta iyo horumarinta ganacsiga Soomaaliyeed.